السلام عليكم مدعو سفرست إنا كهلا أروي حيتها سؤال ugu badan oo isku soo noqnoqtaa waxay ahayd adoo lagu kufsaday oo dhibkaas lagu geystay maxaa u qarisay hadaa idin sheegaya weligii hooyaday waxa dhihi jiraan hooyo gabar kale maxaa iigu dhaliweysay maxaa keligay ii dhashay keligayna ii dhashid ma gabar walaalaha u baana waxa dhihi jirtay may adaa kun gabar iiga fiican adaa wax kasta boqorada tahay سين طورت أنا هاي ولا يحرف رعمي بأبودي باين هذا وقت صدق وأمس حنونك أنا أدري ما يحقق لوينا هو يدي متكدرين دون تمرقع وشيء مستقبل كينا واي واي وحكستينا يقول واي هذا هاي لا سينو قندن تباس لا sababta hooyaday markasta way ugu faani jirtay dad badan bay dartay ula soo kala go'day dad badan oo hooyaday heer walba gaari lahayd ani dartay u gaari weys inta u tago sidee ku dhahaa hooy macaan hooyo igraale noqo maaska aragto agsoo bixi waay shalay keligay ahay maanta laakiin maanta waxaa tusteen wiil kastoo Soomaaliyeed inuu walaalkii yahay hooyaday waxaa dhihi jiray hooyo gabar maxaa iigu dhaliweysay laakiin maanta adigaa walaal ii noqotay kun gabar inay la dhalatay aaminsanaa hooyaday ma awoodin inaan hortaga aadha hooyo see ku dhaha hooyo nolosheedii gabadhaa ku faani lahayd rajadaada waa khasaartay waa awoodi waaye sababtaa u qariyani sababtaasay ahayd laakiin ma aamusin oo gabar masaakiin oo jilicsan maana noqonin waa dagaalamay inta dagaalami karo nimankii waa xiray waxaa isdhahay waa guuleysatay maanta waa noqon kartaa gabadhii hooyada ay rajaynaysa inaa noqoto laakiin may waa noqon waayo hooy macaan iska kicaafi